السلام عليكم وقيبتين تضوات فيكتور. اوكي ان maanta waxaa sharaxeynaa wax la dhahayo haddii laba vector xagashooda ee 90 degree tahay. Kasoo qaad waxaan dhahay a vector iyo b vector labadooda macnaha isku istaagsan yihiin waa 90. anoo calaamada ta'da hoos mariye saasay ka dhigan tahay. marka saan ku dhaho waxay ka dhigan tahay saan hadduu kan a vector yahay kanna waa inuu noqdo b vector sababtay tahay xagashaas 90 degree inay noqoto. mafahant kasoo qaado haddii a vector saan tahay a vector b vector inuu saan noqdo waaye b vector xagasha 90 degree inay noqoto ama saan hadday tahay kasoo qaad a vector hadda xaggaas ku haysatid b vector inay saan noqoto waaye 90 degree ama saana dhigi kartid sida kale. marka muhiimadda waa fahamsantaha waxa ula jeedo. marka qaacidada waxay dhehe haddii a vector perpendicular dhahan laakiin markay xagasha 90 degree tahay taasi waxay la mid tahay a vector lagu dhuftay b vector waa eber. haddii a vector aa ku dhufatid b vector waa inaa eber heshaa. maxay ka dhigantaa waxay ka dhigantaa saan haddii aa haysatid a vector kasoo qaad oo ah eber dhibic hal b vectorna aa haysatid 3 eber kasoo qaad. marka labadooda haddaa macnaha rabtid inaa ogaatid inay xagashooda tahay 90 degree waxaa ku ogaa kartaa a vector lagu dhuftay b vector waxa ay noqonayaan haddii eber noqdaan waa 90 degree. marka x waxaa ku dhufanaya x bilaaga a qorano eber dhibic hal lagu dhuftay laba vector markaas ku dhufanaysa naasaan x waxaa ku dhufa x axis aa ku dhufanaya x axis y axis aa ku dhufanaya y axis ma noqonayso caadi ahaan markuu qoyska yaa a lagu dara ba ama sa lagu dara da macnaha ado kana ku dhufan jirta laakiin hadda saama hadda waxaa isticmaalaynaa coordinate system. marka x axiska waxaa ku dhufanaya x axiska eber lagu dhuftay 3 ee noqone lagu daray hal lagu dhuftay eber eber lagu dhuftay 3 waa eber hal lagu dhuftay eberna waa eber jawaabteena waa eber. waxay ka dhigan tahay markaas a inay perpendicular macnaha xagasheeda 90 degree ay ku taagan tahay b ba'da inay 90 degree ku taagan tahay ba'da waa saas. okay waxaa ku dhahay example-keena kasoo qaad inaa haysatid a oo lamida kasoo qaad inaa haysatid a oo lamida tiradii rabta ha noqoto ada iska dheh 7.6 b vector kasoo qaad tiraday rabta ha noqoto 3 t aska dheh. okay waxaan ku dhahay hel sida hel ta'da sida
a vector iyo b vector xagashooda 90 degree noqoto ta'da cell ah okay ta'da cell marka ta'da saa ku helay waa su'aasha ta'da saa ku helay ta'da hal siyaa ku heli kartaa sidaa hore u barane a vector haddii xagasha ay macnaha xagasha ay ku istaagsan tahay b'da ay 90 degree tahay taasi oo lamid ah a vector lagu dhuftay b vector oo lamid ah eber okay waxay ka dhigan tahay markaas 7.6 lagu dhuftay 3 ta oo lamid ah eber waxaan rabnaa inaan ogaano ta'da waxay noqon karto sida aan u helno eber okay markaas waxaa noqonaya 7 lagu dhuftay 3 lagu daray 6 lagu dhuftay ta oo lamid ah eber x axis-ka ku dhufay x axis-ka y axis-ka ku dhufay y axis-ka marka jawaabtu waxay noqonaya 21 lagu daray 6 ta oo lamid ah eber taasi oo lamid ah ta'da oo lamid ah laga jara 21 loo qaybiyey 21 waa ka wadaa loo qaybiyey 6 haddii aan 3 kor iyo hoos u qaybiyo waxaa helaa negative 7 loo qaybiyey 2 okay jawaabtaasaas labadan vector xagashooda 90 degree ee noqon kartaa haddii tiradan meesha joogta tida aan dhahay ee lamid tahay 7 negative 7 loo qaybiyo 2 ma fiirinaa inay sax tahay waa fiiri karnaa inta waxaa ku haysanay 5.6 iyo 3 okay waa fiirinaynaa 5.6 lagu dhuftay 3 negative 7 loo qaybiyo 2 bal waa fiirinaynaa waxay noqonaya 5 okay marka qaladaa sameeyey 5 maaha waa 7 iskuraal noqda meeshaan inay noqoto waayay 7 okay meeshii yaa 5 ka dhacna marka 7 aa dhehena hadda 7 marka waxaa haysanaa 7 lagu dhuftay 3 waayo sooma x axis-ka x axis ku dhufatay lagu daray 6 lagu dhuftay negative 7 loo qaybiyo 2 marka jawaabteena waa 21 lagu daray 6 haddaa ku dhufatid negative eed marka saas waaye 7 lagu dhuftay 6 loo qaybiyo 2 ay noqonaya sheekada waxay noqonaya haddii 1 laga jaray kan iyo kanaan isku bixiyey haddii 6 aa 2 u qaybiso waa 3 marka waxaa haysataa 3 haddaa ku dhufatid 7 waa 21 waa eber marka jawaabta waa hal jawaab ta'daas waa inay noqoto negative 7 loo qaybiyo 2 haddii labadan vector ee xagashooda ee macnaha noqoto 90 degree sida kuwan kor u sawir marka haddee ta'daas tiro kale ee noqoto waa okay 90 degree marka wixii intii muhiim ahaa nii sharaxay marka waa ku mahadsan tahay daawashadaada haddaad share sii dhigi kartidna waa ku mahadsan tahay dad og tahay oo ka faa'iidaya fiidiyoyaashan waa u sii diri kartaa insha allah hadduu af soomaaligayga aad
وحين يحي وآد ولي تنا وأقرأ لهم sababta taaniga saa dhowr mar hore ugu sheegay ana xisaabta af Soomaali ma bar laakiin inta awoodaa sameynaa insha Allah saa u sharixi karaa u sharaxa marka waa ku mahadsantahay daawashadaada wa billaahi tawfiiq